ciidanka xoogga dalka Ogaadeniya waa daljiraha u taagan danaha shacabkooda waa difaaca dalka hooyo xoogga dalka Ogaadeniya haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan waraysi aanu la yeelanay naftii hore Maxamed Xasan Qarri oo dhawaan ka soo baxsaday ciidamada gumaysiga Itoobiya waxaana waraysigaasi inoo qaaday wariyaheena Cabdinuur Sheekh Maxamed maleeshiyadka loo yaqaan hawaarinta ama liyu booliiska ayaa baryahan dambe aad uga baxsanayay xeryaha ciidamada gumaysiga Itoobiya kadib markii wakiilka waayeen darbaaxooyinka la beegsanayo ee ay ciidamada qalabka sida xoreynta Ogaadeniya la beegsanayaan haddaba naftii hore horay uga mid ahaan jiray ciidamada qalabka sida ee xoreynta Ogaadeniya kadibna galay gacanta gumaysiga Itoobiya in muddo ahaan ku xidhnaa xeryaha kala duwan ee ciidamada gumaysiga Itoobiya ayaa haddana dib u haleelay ciidamada qalabka sida ee xoreynta Ogaadeniya kadib markuu ka baxsaday maleeshiyadka la yiraahdo hawaarinta oo loo tababaray in ay gumaadaan shacabka rayidka ee Ogaadeniya naftii urahan oo la yiraahdo Maxamed Xasan Yuusuf oo ku magaceer Qarri oo in muddo ku xidhnaa xabsiyada kala duwan ee ciidamada gumaysiga Itoobiya ayaa markii hore ahaan jiray markuu galay gacanta gumaysiga Itoobiya taliya urur haddaba raadin badan kadib oo ay raadiyo xorriyo raadisay naftii urahaasi ayay u suurta gashay inay khadka telefoonka kula xidhiidho isagoo ku sugan jidda hore ee dagaalka oo la jooga ciidamada qalabka sida ee xoreynta Ogaadeniya naftii hore ma maqlaysaa aad iyo aad baan ku maqlayaa walan naftii hore Qarri ku soo dhawow horeyntii raadiyo xorriyo marka labaad waxaan filahayaa in aad hayso xogo badan oo ku saabsan xilligii aad gashay gacanta gumaysiga Itoobiya muddadii aad ku jirtay xabsiyada gumaysiga Itoobiya ee kala duwan iyo waxyaabihii lagu sameyn jiray dadka maxaabiista ah ama qaabkii loo dhaqmi jiray adiga goorma ayaad gashay gacanta gumaysiga Itoobiya oo lagu qabtay ka maxbuus ahaan aad iyo aad ayaad walaal u mahadsan tahay xogo badan oo aan gumaysiga Itoobiya ka hayana way jiraan xilligii aan xilliga gumaysiga Itoobiya aan gacanta u galay iyo xilliga maanta ka soo baxsaday xawiisa qaraha badan ee rasmiga ah waan hayaa waa marka koowaad haddaan ka warramo xabsiga la yiraahdo Jeelwaleen ee ku yaala magaalada Kijiya jeelkaas dadka waxaa lagu geystay caddi fara badan oo dil iyo xasuuq oo ka mid yahay dadka lagu laayo maalin Qarri hal xabsiga iyo informationkiisa ama warbixintiisa ay dambayso adigu ma xabsiga jeel Ogaadeen baad ku xidhnayd muddadii lagu qabtay ilaa hadda muddada soo baxsatay anigu qofkii ugu horreysay waxaa la igeeyey jeel Ogaadeen baa lagu xiray marka jeel Ogaadeen baan anigu ku xidhnaa goorma lagu qabtay oo aad gacanta gumaysiga Itoobiya gashay anigu waxaan galay gumaysiga gacanta Itoobiya waxaan galay 18 bishii 2012 xilliga ayaan gacanta cadowga galay dagaal baa lagu qabtay oo dhaawac adigu ha lagu qabtay mise si kala lagu qabtay maya aniga oo dhaawac ah dagaal ayaa lagu qabtay aniga oo dhaawac ay gacanta gumaysiga ayaan galay taariikhuna xilliga ayay ahayd walaal qaybteed ka tirsanayd maxaase ahayd darajadeedu maxay ahayd markii lagu qabanayay aan waxaan ka tirsanaa tabadooda xoreynta Ogaadeniya gaar ahaan qaybta Gorgor xilliga tabada xilkan u magacaabnaa taliya urur baan ku magacaabnaa waa tahay markii lagu qabtay adiga oo dhaawac ama dhaawac sahlan baad ahayd mise dhaawac culus baad ahayd maya kolka xilligaa la qabtay dhaawac daran baan ahaa marka dhaawac aad daran baan ahaa iyo lugaha xabad way iga tahay okay waan gatay goormaad marka hadda soo baxsatay oo aad dib u soo haleeshay ciidamadii aad ka tirsanayd ee xoreynta Ogaadeniya ciidamada tabadooda xoreynta Ogaadeniya 3 bishii 2013 xilliga ayaan dib u soo laabtay waan gatay Qarri muddo sanad ah ayaad xidhnayd dhaawacna aad ahayd dhaawacii hadda see ka tahay hadda aad iyo aad baan u fiicanahay ilaahayna ayaa ishaafiyey ilaahay baa i doogadheeyey alxamdulillahi rabbilcaalamiin allah ayaa mahad kale allah ayaa iga soo bixiyey aad iyo aadna hadda waan u fiicanahay qaabkeed ku soo baxsatay oo aad dib ugu soo haleeshay ciidamada qalabka sida xoreynta Ogaadeniya ayaa ku suurtageliyey maadaama aad ahayd nin xidhan maxbuus xidhan aad ahayd seed ku soo haleeshay ciidamadii walaal haddaan kaaga warramo sababta aan ku soo baxsaday waxa ii suurtageliyey adigu cadowgu marka aan Jeel Ogaadeen ku jiray ayuu u badan ii geystay marka wuxuu igu qasbay inaan dhaho waxaan ka mid noqonayaa hawaarinta saas darteed waxay ugu dareen ciidamada hawaarinta ka mida saas darteed waxay ii magacaabeen shahada darajadeeda la yiraahdo shahada la yiraahdo saas darteed ayaan marka ciidamadii qaar ka mida ayaan abaalushay marka arrintaas ayaa ii sahashay anigoo wadanimadina iga dhammaanin oo qalbiguna ii fayow yahay dad kale taa aan isku xidhnayn arrinta ayaa ii sahashay inaan soo goosto
مبدئيا أو أشياء كتير يسمع فيها صوب ولا وانك تقرر مك هذا وحال له هي ميا صهلالك أو صهلا شيء أما دي بعض وصول نقطة إذا ما دي هراء كتير سنة إذا قلب كتير حرين توجدينية وحكوسة شيء وحاضر نقطة اليو بوليس أو أنت الحبس كجر تتبر بك وسعودي تبرك مكان ضميتين كذب اليو بوليس شعل قدر رجال الوقوع طي مركي اللي جوها والجلية اليو بوليس هل جوها والجلية ضحطتين maalintii u koobaad ee hawlgeliyay ay taariikhdu 3 bishii afraad ay ahayd oo maalinkaas la diyaariyay inaan hawlgal u baxo ayaan hawlgalkii la diyaariyay inaan ka soo baxaan hore ka sii socday wax ciidan oo kula socday markaa ma jira oo kula qaatay fikirka ah inaad dib u haleesho oo dib ugu noqoto ciidamada qalabka sida xoreynta ogaadeen iyo masakiliga baday way la socdeen ciidamada aad fara badan oo tirada ama 32 aan ahayd baan ku socon waan gartay liyu booliiskii loo tababaray in ay ka hortagaan ciidamada qalabka sida xoreynta ogaadeen ee adigu aad ka mid ka ahayd ama aad xilka shaqaalaha ka mid ka ahayd imitaada haydeen oo tababarka aad kaga soo baxday xageeta lagu jiheeyay ciidamada hawaarada xilliga ka tirsanayaan anagu ka soo baxsanay waxay ku dambeeyeen qaar aad 7 sameeyay waa la xiray inna waa la laayay aan 22 marayn anagoo 30 iyo xogaan waan ka soo baxsanay وقصوا بحثنا انتي كلا هذا ميل با لو جوا ان اسلوب wax la yiraahdo gool isma laga dhigay marka ciidamadaas way burbureen qaabkaasina wala hadda ku dambeeyeen qari in aad qaadato fikirkan ama go'aankan ah in aad dib ugu noqoto duurkii iyo dhibaatadii adigoo laga dhigay liyu police ma fikir adiga xagaaga ka soo fulayba mise dhibaatada liyu police-ka lagu hayo ee ay ku hayaan ciidamada gumaysiga Itoobiya iyo xasuuqa ayaga laftooda ay dadka shacabka xasuuqaan baad adkaysa weyday mise waa fikir iyo wadarinimo aan ka marnayo intii xabsigaad ku jirtay iyo intii lagu tababarayay ba ku guntanay go'aan ii guntanaa buu ahaa markii hore sana anigoo jeelka ku jira ayaan ku idhi nimankan warbiinka ayaan ka yartashaday inaan raacay in kale marka su'aashaas waxay ku dhahataa dib noo raacay waan jeelka ku sii jiray saas darteed aad iyo aad xilligaas ayaan go'aan qaatay walaal waa sidaas weeyaan maxamed qari waan gartay ciidamadii aad isla soo baxdeen ee tababarka iskala soo baxdeen maleeshiyaadkii aad tababarka iskala soo baxdeen ee liyu booliiska ahaa rag badan oo laga yaabo inaad awal hore ka wada tirsaneedeen ciidanka qalabka sida xoreynta ogaadeen ayaa jira haddana waxaa laga yaabaa inay hawada raadiyo xurriyo ka dhageysanayaan maxaad kula dardaarmi lahayd ama maxaad oran lahayd hawaarinta aan xilliga ka tirsanaa ee tababarka ku wada jiray 100% fikirkan sibadooda xoreynta ogaadeen iyo wada aaminsanaayeen hase yeeshee aan markii intii aan ogaa ee aan maxaan ku dhahaa aan isku ogeyn inaan ku biiro ciidamada sibadooda xoreynta ogaadeen ayaan la soo tagin laakiin sibadooda xoreynta ogaadeen fikirka toos baa loo aaminsanaa walaal halka marka aata kaaga jawaabaya waan gartay markii tababarka la idin soo xidhayay waxa uu maqaalaha in tababarka la idin ku soo xidhay xerada garab case ee ciidamada gumaysiga Itoobiya militariga ay degan yihiin arrinta ma jirtaa xerada garab case ee ay degan yihiin ciidamada Itoobiya ee federaalka ayaa tababarka loogu soo xidhay hadda kuwana tababarayeen iyaga un bay ahaayeen oo macallimiin kuwa ka tirsan bay ahaayeen oo marka wax gaar ah ma kalaayeen iyagoo maanu isku mid ahayn marka xeradooda ka korona ku dhex tababarinaynay qofkii dambe xeradooda ma lagu soo xidhay tababarka muddo intee leeg ba tababarka ku jirteen muddo laba bilood ayaan tababarka ku jiray waa tahay marka ma dad cusub baad ahaydeen mise dad cusub iyo dad horey u ahaan jiray military baad ahaydeen tababarka la idin siiyay maaha tababar ka duwanaa kii hore qabteen dadka aan ahayn dad maxaabiis ah oo jeelka laga wada keenay aan u fara badnayn waxaa jiray kuwo kaleeto oo meelaha laga soo qasbay oo dad oo kaleeto meelaha laga soo oo lagu soo daray marka wala waa taas dad maxaabiis oo meesha laga soo ururiyay baan u ahayn markii tababarka la idin soo xidhayay wax la idin keenay oo ama odayaal aha ama dadka culimada lagu tilmaamo ah oo tababarka idin soo xidhay ama idin la hadlay ma jira kuwa hal dhowr waxaa naloo keenay 2 nin oo waxaan culimo nahay lahaaba naloo keenay oo hadda magacyada xusuusnay laakiin dad odayaal ah oo fikirkooda taageersan oo naloo keenay hayra taaba ma kan mujrim maalintaas waan gartay qari tababarka markii aad dhamaysateen kadib maxaa la idinku tababarayay ama la idin laqinayay ama la idinku oran jiray macnaha ma dagaalka waxa la idin tababarayay ciidanka qalabka sida xoreynta ogaadeen ma gumaadka shacabka la idin tababarayay maxay ahayd akhlaaqda la idinku tababarayay su'aashaas walaal haddaan si fiican kaaga jawaabo markii la tababarayay muddooyinka laba bilood tababarka ku jiray
wixii nala carbinayay waxaa kow ka ahaa in aan la dagaalano bulshooyinka reer magaalada ee gumaysiga Itoobiya ka soo horjeeda su-aasha koowaad ee nala carbinayay taasay ahayd in aan dadka jabhadda taageersan soo qabanno inaan maxaa ku dhahaa mujaahidiinta iyo jabhaddii aan la soo dagaalano dadka aan dhisno aan dhibno meelasha ceelasha ee ay biyuhu ku jiraan inaan ka soo aasno si dadku ay isugu tagaan meelaha uu gumaysigu degan yahay saddexdaa arrimood ayay ahayd marka arrinta laakiin igu dhibanaydeen aad iyo aad u qiiroon jiray waxay ka mid ahayd meelaha gumaysiga Itoobiya ka fog ceelasha aleh in lagu carbin jiro aasana la odhan jiray marka si ay dadku isugu yimaadaan xeryaha gumaysiga Itoobiya meelaha ay joogaan biyo wala meelaha si dadku isugu yimaado oo dadka halka meelaha uga qabano adigu arrimaha ugu dhibana arrimahaas ay ahayd nala carbin jiray marka walaal adigu saasay ahayd waa gartay qarri marka adigu dee ma aadan bixinba oo markii la baxayay hawlgalka la aadayay waad ka goosatay oo dib aad u heleeshay ciidamadii hore aad ka tirsanayd qalabka sida xoreynta ogaadeeniya intii aad xidhnayd iyo intii tababarka aad ku jirteenba akhlaaqiyaadka liyu booliiska ama la idinka sheekayn jiray ama aad ku arki jirteenba ama la idinku tababarayba akhlaaqiyaadkooda maxaa ka mid ah horta nimankaas hawaarinka la yidhaahdo horta akhlaaqiyaadkooda horta waxaa ka mid ah horta anigu akhlaaq oo dadka biniaadamkii uu leeyahay ama gaar islaha akhlaaq wanaagsan kumaan arag waa marka koowaad akhlaaqooda waxaa ka mid ah dee ay dadka ay diinta iyo xusuus iyo malaa'igta ay caayayaan mooyaan aan wax akhlaaqa kuma arag marka waa saas walaal aan wax akhlaaqa oon ku arkay hadda ku tilmaamo oo biniaadamnimo iyo tu kala toona kumaan arag walaal kooxda ka tirsanayd xawaarinta ahayd ama liyu booliiska ahayd baxsigooda hadda uu biloway qaarna aad tiri waa la xidhay qaarna waa la laayay aad tiri baxsigooda sidii uu weli u socdaayo tusbax furtay bay noqdeen ragga ku dhegaysanaya raadiyo xurriyo kaa dhegaysanaya ee saaxiibadaadii aad la qalin jabisay tababarka 2 bilood aad kala baxday ha ahaadaan kuwii kale ee banaanka laga keenay ha ahaado kuwii hore usii jiray naarta ha ahaado raggii saaxiibaha maxaad ugu baaqaysaa waxaan ugu baaqayaa in aysan maxaan ku dhahaa ayna gumaysiga isu dhiibin oo ay maxaan ku dhahaa kusoo biiraan jabhadooda iyo xoreynta ogaadeeniya annagoo sida aan gumaysiga Itoobiya ay u diidno karta inay soo diidaan taas ma ugu baaqayaa Soomaalida waxay ku maamuleysaa arkaysaa maqlaysaa xaqana way arkaan dulmigana way arkaan markaa saas weeyaan taas ma ugu baaqayaa waan gartay qarri waxaan filayaa hadda maadaama aad soo haleeshay ciidamada qalabka sida xoreynta ogaadeeniya hawlgalladaadii caadiga ahaa ee aad markii horeba intii aan lagu qabanin ka horba ka hawlgeli jirtay ee aad taliyaha ururka ahayd ayaa dib uga hawlgashaan filaya hay aan dhulkay markii hore aan ka hawlgalahayay iyo hawshii markii hore aan watay ma haddana sidii u wataa aad iyo aad baan ugu faraxsanaa allah ayaa mahad iskale allahna ayaana soo waafajiyey aad baad u mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa naftii hore maxamed xasan yuusuf oo ku magac dheer qarri oo gacanta gumaysiga Itoobiya horay u galay kadibna dib uga soo baxsaday kadib markii loo tababaray maleeshiyaadka hawaarinta ama liyu booliiska oo laga horgeeyay shacabkii dulmanaa ee awal horeba u dagaalami jiray darajadiisu waxay ahayd qarri markii la qabanayay taliya urur waxa uuna xabsiyada kala duwan ee gumaysiga Itoobiya ku jiray muddo 1 sano ah